dhalinyarada ay sida ay u degdegayaan ama ku wadaan wuxuu ku yiri marka xamar baa jooga maxaa ka jira xawar haysata marka oo adduunku iyagu la khitaabaya oo saad ogtihiin xataa منسقي قضايا الأوروبية حمر بكده إذا حسن ظاهر بأيربور كشرقوي سوروا يقولوا يعني أدوك ولا خطابية ضد لو قصية ضل قوضا إني يعني أنا وبيرجع في مصر ضل كي أرمنا إن النبض يحسلوني يكلا ضمين يأم وصل يصير مركو دقيستي سيدا واحد صار من اللوجو المقية والوصي صعده وماشان هذا اللي تشوفه باللوجو الجديد إن إيرا أحلى صمية يقول لي سيدا هذا عاد قوة دان هذا القضية بقص عطو وسيدا هذا وضع هذا قص عطان وحلا أركي دوانابيا وزارة القاشاندية الصومالية وإثيوبيان وجو أما كتري علماء ضدك العلمي حاول يراهض وحي أركان وحن ضدكم مركز هي أركي كاي صارت كيف ترى علمي مركز وحي يروح على أركي دونا ساحة دافوسي وطن سارة القاشاندية دي صومالية أو إثيوبيان وكتلك وين أنا على سبيل وقتي لو بيقولون الصبح شرعي والصبح رحمه الله يسجنا على أيامها صدوده لعي طريق اللي بحين إسنا كلمة بيجي مركز الرياضة قارقة فكر يا إلهين حرمنا هنا كان كجل نوع عن نيويورك صباحا ديك حمر قضاته محمد مسوي شو قام ماليريا إنه هالكاس كصوت دلاعه نيويورك صباحا حرمنا وحكوي الور هذا الريال بلتاس هاي نقطة بيسه نيويورك حمر تنهض بل إنه هي ونودي إنه هي هي إنه حصل أنت نيويورك هذه بالضبط ترى حصلين هذا أسوأ ما يعرفون علماء waxaan ka raali gelinayaa wali su'aalaha noocaas oo socdaan dabcan kuwii fiqiga way yaalaan laakiin waxa la leeyahay maaragtay kuwaana ka muhiimsanayaan laga qarinin sidaas u soo deynayna waxa saailkan uu leeyahay in badan waxa la dhageysiyay ama naloo daaraa hadallada wadaadka xasaan uu leeyahay culimada waa wada soconay markii hore iyaga naga haray gaalaysiintana iyaga nooga horeeyay markay ka laabtaan oo aan ka laabanay alxamdulilah horta xaqiiqatan horta idinka hadda waxay idin tahay wallaahi arrin qosol leh sharu lbaliyati maa yubxik wax runtii lagu qosoomaa waa arrin dhib badan dhiig muslim inuu ciyaar noqdo marka anigu waa sii xoogaa sii dooxayaa laakiin sheekh si fiican usii saafi doono horta arrinka iyaga gaalaysiinta nooga horreeyey annaguna waa kaga daba tagnay wayna nooga baxeen arrinkaas waxaan leeyahay waa been abuur lagu sameeyey culimada ma jirto culimada soomaaliyeed inta aan ka aqaano meel ay ku yidhaahdeen ashkhaas la yaqaano hebel iyo hebel iyo hebel inkasta ijraamkooda ha gaaro macaasidooda ha gaarte ay yidhaahdeen hebel waa gaal waa murtad anigu ma xusuusto qofkii haya ama isagu haddu haya xitaa uu keeni karo haddii la yidhaahdo dagaalada la galay waa sax waa qalad dagaalo waa jiraan qaladaan dacay way jiraan laakiin laysma gaalaysi gaalnimona ma ahay gaalnimo ama shacab ama ummad ama qabiil ama urur ama xukuumad la gaalaysiiyey ma ahay أنا ما حسوسته حكومة المجالسة لكن إن يرادان علماء كان هدي جري كتابك إلهي سبحانه وتعالى هدان وحلو حكم أمل الديده أما الله يراهض وقت كان مناسب معها أما الله يراهض أنه مصوبنا
gaalnimo weeye arrinkaas inay yidhaahdaan waa jirtaa waana sax waxaana qofkaa u kala baxsanayn waxa caamka ah in la yidhaahdo in dastuur gaala lagu dhaarto waan fulinayaa waa gaalnimo in la yidhaahdo dimuqraadiyad baan ogolahay keligeed oo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala bedelkiisa ii gelaysa kitaabkana ma rabo waa gaalnimo arrimaha saas in la yidhahdo xukunka caamka ah oo aan qof gaarah markaa lagu ridin ee si caamah loo rido waa arrin saxiixa oo jiro inay saa uga hadlaan culimadu bayaaniyaan laakiin hebel waa gaal hebel waa murtad anu ma xusuusta taa dawladihii ka horreeyey isaga shariifka tan hadda joogta tii ka horreysay oo cabdillaahi yuusuf kuwii kasii horreeyey meel ay ku xukumeen culimadu oo fatwo kaga soo saareen hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel waa gaal waa murtad sida hadda qoladan iyagu ay u gaalaysayaan ama fataawada xasaan ay tahay hebel iyo hebel iyo hebel shaksi ahaantiisa waa gaal ma jirto arrinkaas taas horta marka waa arrin lagu garaawurtay culimada midda kaleeto oo maxay ahayd la socotay idinkaana geliyey oo gaalnimada nooga tegey waan sheegay markaan ka hadhaan baan ka haray hadda annagu hore waxma gaalaysin idinkun baan idin leenahay ka soo hara oo ka jooga meelahay soo dalisaan waa ka sheeg maxamed cumar waa dhinac fadhiyaa waxay yidhaahdaan wuxuu gaalaysiiyey dowladdii shariif meelaha ugu badan oo ay soo celiyaan shariif u gaalaysiiyey iyo asxaabtiisi mana ahayn masaladu saas khudbooyinka way duuban yihiin way yaallaan war dastuur gaalnimo ah ama dastuur aan dastuurkii ilaahay ahayn baan fulinayaa oo isagana ixtiraamaya oo qadarinaya oo saas ah inaad ku dhaarato gaalnimo weeye iyo waxaan dadka u kala baxsaneen hebel waa gaal midna cumuum baa la yidhaahdaa midna mucayan baa le qofka mucayanka ah axkaamka lagu baahanaya laakiin xukunka caam ahaan iyo guud ahaan waa la ridi karaa qof gaala kuma dhacay taasaan marka dadka qaarkiis laga yaaba in iska dhex gasho laakiin culimadu meelay ku gaalaysiiyaan markay uga noqdaan ma jirtee iyagaan leenahay ka daaya ummadda hebel waa gaal iyadu waa duuban tahay waa la hayaa ma garata shaksi culamaa si jamaaciya iyo si maaragtay fardi ah jamaaca hebel nimanka la yidhaahdo oo dhan waa gaal culimada hebel iyo waa gaal culimada ka soo horjeeda shabaabka kulligood ha la dilo fi lxilli waalxaram ha lagu dilo isagaa laga hayaa nin kale oo laga hayo anugu ma xusuusto qof kaloo xataa laga hayo ma xusuusto anu markaa sheekhaan insha allahu tacaala wixii kale bismillahi rahmaan rahiim waxaan ku dari lahaa horta masalada asalkeeda ruuxa isagoo muslim ahaa diinta uu ka bixi karaa waana la xukumi karaa inuu diinta ka baxay masaladuna ma aha diintu sida midab ama abtir nasab aan la bedelin maaha soomaali fara badan sooma gaalo soomaali gaalaha ma jira oon isla qirsana inay gaalayiin way jiraan marka sideedaba masalada gaalaysiinta inuu ruuxa diinta ka baxo isagoo muslim ahaa waa masale asal leh oo horeyna u dhacday haddana dhacayso mid ku dhacay wax diinta lagaga baxo in la xukumo la yidhaahdo diintii wuu ka baxay oo gaalnimadiisa la xukumo iyadana waa masale asal leh laakiin taa maa midda laga hadlayo waxa weeye war dariiqa dadka loo xukumayo iyo cidda xukumaysa toona ma waafaqsana jidkii shareecada dejisa ninka xukumayana ninkii shareecadu ugu talagashay inuu xukumo ma aha shuruudihii iyo dawaabidii shareecadu ugu talagashayna ma marin natiijada ka soo baxaysa waxa weeye waxa la gaalaysiinayo waa muslimiin aan ku dhicin wax diinta ka saara ama laga yaabo inay ku dhaceen wax diinta lagaga baxo
laakiin cudurdaar iyo shuruud iyo dawaabid sharcad u dejisa masalada horta saa inaan u kala qaado waan jeclaa waxaan ka doodayna waxa weeyaan war dadkan gaalaysiinta aad gaalaysiinaysaan ma aha wixii salafka iyo saxaabada iyo a'immada iyo dariiqoodii ma aha masalada taxadarkii laga taxadari jiray sidii la isaga ilaalin jiray ma haysaan waad ku fududaateen qabaa'il dhan in la yidhaahdo qabiil hebel waa ridoobeen waa qabiil dhan oo saalix iyo daalix wale koox dhan oo ummad ah